kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada wararka janalka Ool Banaadir. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka qayb noqon doona xukuumadda Soomaaliya oo iska fogeysay inay jibisay heshiiskii ay la gashay ahlu sunna. Fashil soo wajahay guddigii uu Ibraahim Dheere u magacaabay xil wareejinta duqa Muqdisho. Nisa oo soo qabatay ninka qayb qaatay qaraxii lagu dilay xogahayihii hore ee gobolka Banaadir. Madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay khasaaraha ka dhashay roobka da'ay Hargeysa. Gobolka Alabama oo ku baaqay in Ilhaan Cumar laga saaro Koongareeska Mareykanka. iyo Mareykanka oo beeniyay duqeyn la sheegay inuu ka geysto Soomaaliya. Akhbaraadka caalamka waxaad ku daawan doontaan Iiraan oo xukun kurdanin lagu eedeeyay basaasnimo iyo Kurdiyiinta Suuriya oo ka baxay Fariisimo ee ku lahaayeen Suudiinta Turkiga. Intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu waaweyn. Kusoo dhawaada iyaga oo faahfaahsan waa 28 bisha Agoosto 2019. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa iska fogeysay inay jibisay heshiiskii ay la gashay ahlu sunna. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Cabdi Maxamed Sabriye oo la hadlay bulshada Dhuusamareeb ayaa shaaciyay in dowladda Soomaaliya aysan ka bixin qodob ka mid ah heshiisyadii ay la galeen ahlu sunna. Wasiirka ayaa tilmaamay in xukuumadda iyo ahlu sunna ay kala saxiixdeen 10 qodob oo muhiim ah kana qayb qaadanaya xasiloonida iyo dhismaha Galmudug welina dhankooda ay dhowrayaan. Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku dadaalayso sidii reer Galmudug ay u heli lahaayeen dowlad goboleed maanta oo ay u dhan yihiin dadka deegaanada reer Galmudug. Heshiiska iyo xukuumadda iyo ahlu sunna iyo xukuumadda oo saxiixa ka ahaa wasiir Sabriye ayaa waxa uu tilmaamay in weli ay dhowrayaan isagoo madasha ka akhriyay qodobada u ogolaanaya ciidamada xukuumadda in ay geyso Dhuusamareeb. Wasiir Sabriye waxa uu madaxa ahlu sunna ka dalbaday in dadka reer Galmudug u soo bandhigaan qodobada ay jibisay xukuumadda Soomaaliya. Shacabka waxa uu sheegay inay u kala gar qaadaan xukuumadda federaalka iyo madaxda ahlu sunna isagoo tilmaamay haddii la daayo magaalooyinka ay maamulaan in aysan dan u ahayn dadka ku nool sida uu hadalka u dhigay. War-saxaafadeedka oo ay soo saareen madaxda ahlu sunna waxay ku sheegeen inuu burburay heshiis ay la galeen xukuumadda federaalka kadib markii ciidamo laga qaaday Muqdisho la geeyay Dhuusamareeb. beesha caalamka waxay ogeysiiyeen inay la socdaan xaaladda Galmudug isla markaana ciidamada dowladda geysay xarunta Galmudug waxay ku tilmaameen duulaan ka dhan ah iyaga oo looga golon yahay isna difaaci doonaan sida ay ku qoran war-saxaafadeedka ay soo saareen ahlu sunna. dowladda Mareykanka ayaa beenisay in duqeyn la sheegay ka geysatay Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa iska fogeysay warbixin ku saabsan weeraro 25 ilaa 26 bishan Agoosto ka dhacay Soomaaliya oo la sheegay inay ka dambeysay. warka ka soo baxaya taliska Afrika ayaa sheegaya in wararka ay baahiyeen warbaahinta guduhu aysan ahayn kuwa xaqiiqda ku saleysan. waa siyaasadeena inaan shaacino warbixinada la xiriira weerarada aanu ku galeyno Soomaaliya iyo meelaha kaleba. waxaan ku baahinaa website-keena iyo barteena Twitter-ka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika. Toddobaadkan ayaa warbaahinta gudaha waxa ay qorayeen in weeraro ciidamada Mareykanka ka geysanayeen gobolada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa dhinaceeda sidan oo kale dhowr jeer beenisay in wax weerar ah ay ka dhaceen gobolada koonfureed ee dalka oo duqeyn ah. Gobolka Alabama ayaa ku baaqay in Ilhaan Cumar laga saaro Koongareeska Mareykanka. xisbiga jamhuuriga ee ka arrima gobolka Alabama ee dalka Mareykanka ayaa meel mariyay sharci lagu doonayo in Ilhaan Cumar looga saaro aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka. Tommy Hones oo ah xildhibaanka gobolka Alabama ku matala aqalka hoose ee Mareykanka ayaa soo jeediyay hindisahan waxaana ansixiyo golaha loo soo gaabiyo GOP ee xisbiga jamhuuriga. guddiga ka socda golaha deegaanka gobolka Alabama waxa ay tagi doonaan aqalka hoose ee Mareykanka iyaga oo doonaya in xeerkaasi la meel mariyo Ilhaan laga eriyo aqalka hoose ee Mareykanka. xisbiga jamhuuriga oo ah xisbi siyaasiyiintiisu adag yihiin isla markaana uu ka mid yahay Donald Trump ayaa waxa uu dagaal ku hayaa Ilhaan Cumar oo ah gabar qaxooti Soomaali ah oo Mareykanka degan. xildhibaanada kale ee gobolka Alabama ayaa taageeray qaraarka waxayna Ilhaan Cumar ku cambaareeyeen hadallada ka dhanka ah Israa'iil iyo kuwa ay ku sheegeen inay ku socdaan dadka Mareykanka ah. xafiiska Ilhaan Cumar ama midka xildhibaanada gobolka Alabama ku matala Koongareeska kama uusan jawaabin codsiga ay soo jeediyeen wakiilada gobolkaasi ee doonayay inuu Ilhaan Cumar ka saaro aqalka hoose ee Mareykanka. madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay roob ka da'ay Hargeysa. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi ayaa wax ay weheliyaan wasiirka arrimaha gudaha, gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex, maayarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, taliyaha ciidamada booliska, dabdamiska, ilaalada madaxtooyada iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa kormeer ku soo maray khasaaraha uu geystay
roobab lixaad leh oo ka da-ay Hargeysa iyo nawaaxigeeda, waxaana madaxweynaha warbixin siiyay khasaaraha uu roobka ka geystay mas'uuliyiin ku howlanaa gurmadka iyo samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay roobabka. waxaana madaxweynuhu kormeer ku tagay isbitaalka guud ee Hargeysa. waxaa kale uu madaxweynuhu shacabka Somaliland si toos ah uga hadlay telefishinka ku hadla afka Somaliland. waxa uuna madaxweynuhu xusay 18 qof ee ku dhaawacmeen 3 kalena ay ku geeriyoodeen, iyaguna khasaaraha lixaad leh uu geystay roobabkaasi welina lagu jiro gurmadka iyo baadigoobka roobabkaasi waxa keenay. dhanka kale Nisa ayaa soo qabatay nin ka qayb qaatay qaraxii lagu dilay xogahayihii hore ee gobolka Banaadir. taliska ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed ee Nisa ayaa shaaciyay inay soo qabteen nin ka tirsan Al-Shabaab oo ka qayb qaatay qarax maalmo ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa lagu dilay agaasimihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Amiin kadib markii gaarigiisa loogu xiray. Nisa ayaa howlgal qorsheysan kaga soo qabatay degmada Yaaqshiid dhagarqabe ka qayb qaatay qaraxii lagu dilay agaasimi Maxamed Amiin. Allah u naxariistay. gurigiisana waxaan ka soo qabanay alaabaha qaraxyada loo adeegsado, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo Nisa ay soo dhigtay bogga Twitter-ka ay ku leedahay. Nisa ayaa soo bandhigtay muuqaal kooban oo laga soo duubay qalabka loo adeegsaday qaraxyada oo laga soo qabtay hoyga uu deganaa ninkan ay ku sheegeen in uu ka qayb qaatay qaraxii lagu dilay xogahayihii hore ee gobolka Banaadir. magaciisana ma aysan shaacin, waxaana kamid ahaa bateriyaal moobilo yaryar iyo miinooyin. dhanka kale fashil ayaa soo wajahay guddiga uu Ibraahim Dheere u magacaabay xilka wareejinta duqa Muqdisho. dib u dhac ayaa soo wajahay munaasabadii xilka loogu wareejin lahaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Filish oo lagu waday in xarunta dowladda hoose ay ka dhacdo. dib u dhaca ayaa yimid kadib markii uu shaki soo kala dhexgalay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir iyo guddigii qabanqaabada xil wareejinta ee uu magacaabay sihayaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Ibraahim Dheere. wararka ayaa sheegaya in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu dalbaday in la bedelo inta badan xubnaha guddiga uu magacaabay Ibraahim Dheere oo shaqadooda u gadan waayay sidii loogu talagalay. gudoomiye Filish ayaa la sheegay in uu kalsooni darro ka muujiyay howlaha guddiga, gaar ahaan qaabka loo wajahayo ammaanka xarunta dowladda hoose ee Xamar. Ibraahim Cumar Mahad Alle iyo xubno ka tirsan guddiga uu magacaabay ayaa la sheegay inay qorsheeyeen in amniga xarunta dowladda hoose ay sugaan ciidamadii hore u joogay, balse waxaa arrintaas si cad uga hor yimid gudoomiyaha cusub Cumar Filish oo ka shakiyay inuu meesha ka socdo qorshe isaga lagu shirqoolayo maadaama ciidankani ay sugeen ama ay sugi waayeen ammaanka gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir marxuum Injineer Riiso. waxa uu dalbaday in la bedelo dhamaantood. shakiga laga qabo ammaanka xarunta dowladda hoose ayaa sii xoogeystay markii xubin ka tirsan guddiga qabanqaabada ee uu magacaabay Ibraahim Dheere la xiray, taas oo ka dambeysay markii uu diiday inuu ka baxo xarunta gobolka Banaadir si baaritaan loogu sameeyo. amniga xarunta gobolka Banaadir ayaa waxaa ka taagan qalalaase iyo kala shaki soo kala dhexgalay mas'uuliyiin cusub iyo kuwii hore u joogay oo maamulka sii hayay waa gobolka Banaadir. ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in ciidamo uu wato taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan Saadaq John ay soo farageliyeen arrintan ayna la wareegeen xarunta maamulka gobolka Banaadir inta ciidamo gaar ah looga sameynayo, iyadoo arrimahan ay sababeen dib u dhac ku yimid munaasabada xil wareejinta ay dhici lahayd oo aan weli xilli kale loo qaban. qaraxii lagu dilay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir marxuum Injineer Riiso iyo mas'uuliyiin kale ayaa keenay in gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Cumar Filish uu ka muujiyo dhammaan mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha gobolka shaki, iyadoona la aaminsan yahay in qaarkood ay si buuxda uga qayb qaateen shirqoolkii lagu dilay marxuum Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Riiso. intaas waxay ahaayeen akhbaraadka gudaha. markana wararka caalamka. kurdiyiinta Suuriya ayaa isaga baxay fariisimo ay ku lahaayeen soohdinta Turkiga. dagaalyahanada kurdiyiinta waqooyiga Suuriya ayaa shaaciyay in ciidamadoodii iyo sanadihii cuslaa ay kala soo baxeen fariisimo ay ku lahaayeen goobo ku yaala xadka Turkiga, sidoo kalena ay baabi'iyeen dhufaysyadii ay ku lahaayeen goobaha ay ka baxeen. waxay sheegeen dagaalyahanada kurdiyiinta ee gobolka haystay inay sabdidii ka bilaabeen tallaabadii ugu horeysay ee howlahaas ah Ra'sa al-Ayn oo ay ku baabi'iyeen dhufaysyadii ay halkaa ka sameysteen, sidoo kalena ay ka soo saareen xoogaga ilaa shacabka kurdiyiinta ee YPG iyo sanadoodii cusleed ee dhanka ciidanka. wakaalada wararka Reuters ayaa soo xigatay afhayeenka isbahaysiga xoogaga dimuqraadiga Suuriya Mustafa Bali inuu sheegay in xoogaga ilaalada shacabka kurdiyiin iyo xoogaga dimuqraadiyiinta ah ee Suuriya oo Mareykanku taageero in ay goobaha dib uga soo gurteen qiyaastii 5 ilaa 14 kiiloomitir. waxaana intaa ku daray in iyada oo laga duulayo wadaxaajoodkii Mareykanka iyo Turkiga ay yeesheen
ee ahaa in ciidamadu ka durki doonaan xadka Suuriya iyo Turkiga. balse arrinta waxaa cakiray taageerada uu Mareykanka siiyo Kurdiyiinta gaar ahaan YPG. xilli Washington ay isu diyaarinayso inay dhinto howlgalladeeda militari ee Suuriya ayaa wuxuu maamulka Trump ballan qaaday inuu aag ammaan ka sameyn doono xuduudda waqooyi bari ee Suuriya ay la leedahay Turkiga. xukuumadda Ankara ayaa u muuqata mid ku daashay ballanqaadka aan fulin ee Washington. duulaanka ka dhanka ah ee Kurdiyiinta oo ka dhaca bariga Furaadna waxa uu dhalin karaa colaad ballaaran oo hor leh. ugu dambeyn Iiraan ayaa xukun adag ku ridaynin basaasnimo lagu soo eedeeyay. waaxda cadaaladda ee Iiraan ayaa sheegaysa in nin haysta jinsiyadda Britain iyo Iiraan 10 sano oo xabsi ah lagu xukumay kadib markii lagu soo eedeeyay inuu basaas u ahaa hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. Anousha Ashore ayaa sidoo kale lagu ganaaxay lacag dhan $36,600. xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa xaqiijiyay inay taageerayaan qoyska ninkan haysta jinsiyadda UK iyo Iiraan. safaaradana ku taala Tehran way sii wadi doontaa codsigeeda ku aadan taageerada qoyska ninkan lagu xukumay, ayuu intaasi ku daray xafiiska arrimaha dibadda ee UK. sida loola dhaqmo dadka haysta jinsiyadaha kale ee kala duwan ee ku xiran Iiraan, waxaan kiiskooda ula tacaalaynaa si gaar ah oo ku saleysan heerka ugu sarreeya. waxaan Iiraan ku boorinaynaa in dadkaasi iyo qoysaskooda ay dib u mideeyaan. Iiraan ayaa sanadihii ugu dambeeyay xirtay tiro dad ah oo haysta jinsiyado kala duwan iyo kuwa ajaanib ah, kuwaas oo inta badan lagu soo eedeeyay dambiyo basaasnimo ah. dadkaasi waxaa ka mid ah shakhsiyaad haystay jinsiyadda Ingiriiska iyo kuwa Iiraan sanadkii 2016 lagu xukumay 5 sano oo xarig ah. dowladda Iiraan ayaanan aqoonsanayn muwaadiniinta reer Iiraan ee haysta jinsiyadaha kale. xiriirka Iiraan iyo UK ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay aanan wanaagsanayn kadib markii ay isku khilaafeen maraakiibta shidaalka ay kala afduubteen. 4 bishii Julaay markab kuwa shidaalka qaada ayaa xeebta Gibraltar waxaa ku qafaashay ciidamada badda UK kadib markii looga shakiyay inuu markabkani baalmaray shuruucdii cunaqabateynta ee midowga Yurub, kaas oo ahaa in maraakiibta shidaalka sida aysan geli karin gudaha dalka Suuriya. markabkaasi ayaa la sii daayay 15 Agoosto ee bishan, balse Iiraan ayaa weli haysata markab kuwa shidaalka qaada ah oo ka dulbabanaya calanka Britain, kaas oo Iiraan qafaashtay 19 bishii Julaay aynu soo dhaafnay. intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen janalka All Banaadir. waad ku mahadsantahay daawashadaada.